Dallada wacyigelinta iyo isku xidhka dhalinyarada Somaliland ee magaceeda loo soo gaabiyo Sayna ayaa habeenkii xalay ahaa munaasabad ballaaran ku qabatay hoolka hay'adda shaqaalaha Somaliland. Munaasabadan oo lagaga hadlayay shaqo la'aanta baahsan ee haysata dhalinyarada Somaliland iyo waliba sidii ay dhalinyartu uga gudbi lahayd caqabadaha ka hortaagan shaqooyinka. Waxaana barnaamijkan oo bilo noqon doona loogu magac daray La Wadaaga Sayna. waxaana munaasabadan ka soo qayb galay ardayda wax ka barata jaamacadaha xubno ka mid ah ururada bulshada iyo dhalinyaro aad u tiro badan. ugu horreynna waxaa munaasabadan hadalka iska daba qaatay xubno loo soo xulay daadiinta barnaamijkan oo uu horkacayay Mustafa Cusmaan Magaalo. inaynu isla fahanno waa maxay shaqadu. waxaa laga yaabaa intayna meesha isugu timid inuu midba gaar haddii loo weydiiyo oo ambarfay lala maro inuu ku jawaabayo su'aal ama jawaab ka duwan qofka kale. tusaale ahaan ninbaa nin kale ku yidhi xaaskaadu ma shaqaysaa suuli maya suu haddana maxay qabataa subaxii salaada hore way noo kacdaayo laxooxda nin dubtaa caruurtay haddana iskuulka geysaa haddana qadadii bay adeegii doontaa way noo karisaa way na siisaa haddana walkii bay xashaa haddana cashadii waa shaqo soo ilaah ma shaqayso soo shaqo maaha. yacni waxa kala duwan fahanka qofku uu ka bixi karo shaqada markaa runtii markii aan dabagalay qeexitaano aad u fara badan baa la siinayaa shaqo waa maxay. qeexitaan halka ku yaalla waxa uu leeyahay shaqadu waana kii ugu dhawaawaya shaqadu waa dhaqdhaqaaq. shaqadu waa dhaqdhaqaaq waa qofku inuu dhaqdhaqaaq sameeyo. dhaqdhaqaaqaas oo waxa weeyaan qofka faa'iido soo gelinaya faa'iidadaasoo ah mid la taaban karo ama aan la taaban karin. okay haddii wax walba laga dhigayana waynu ku sheegaynaayo amba waan hawshooda oo intay inantu hawshoota ila midaan hawshooda. qof waa qof mar waxaad ku howlan tahay dan caama, mar waxaad ku howlan tahay dan guri iyo dan qoys, marna waxaad ku shaqaynaysaa waad ku howlan tahay naftaada yourself keliyaad. markaa shaqada aad naftaada ka qabataa hadday ka badato ka waran shaqadii aad danta caamkaa ka qabanaysa. shaqooyinka markaa caadiga ah ee aynu inagu iminka doonayno inaynu ka doodno kullu makaan lahu maqaal bay carabtu tidhaahdaa. waxa weeyaan shaqada laga shaqeeyo ee laga helo benefit dhaqaale ama faa'iido dhaqaale laga helo. haddaba anigu shaqo waxaan ku dhifinigarayaa wax kasta oo lacagi kaa soo gelaysa inay tahay. markaynu shaqada ay shaqa la'aantu inaga hayso aynu ka hadlayno ilaa shaqa la'aan inama haysee taa aynu ka cabanee shaqa la'aantu inaga hayso markaynu ka hadlayno taasaan anigu aqaana. ma aha macnaheedu in agaasimo lay magacaabo layga dhigo, ma aha macnaheedu in wasiir lay magacaabo, ma aha macnaheedu inaan xog ahayn wasiir noqdaan xafiis fadhiisto, ma aha macnaheedu inaan shirkad u shaqeeyo. laakiin shaqadu waxay tahay wax kasta oo ay iga soo gelayso lacag anigoo aan u qalmaynin oo darajadeydii aanay ahayn. haddii aan hanyars kala imaado idhahdo no I am master kama shaqayn karo saxaafad ma weriye anigoo master isma qaadanayso soo maaha. waxaa isqaadanaysa war gaadhiga ma idhahdo mastera lacag soo ma helaysa. waxaad doonaysaa shaqada ka helaysaa soo maaha. shaqada aad doonaysaa soo maaha inaad lacag hesho de oo aad naftaada ku maarayso, qoyskaaga ku maarayso, masruuf kaa soo galo, biil kaa soo galo. dee waxaa la sheegaya inay yaroo camuud jooga oo kabaha baalasheeya oo meherada cadcad ku letay magaalada Boorama oo jaamacaddana dhigta dhinac ka dhigta jaamacadda ka kibri maayo haddii uu master iyo PhD gaadho. no baalashkii ma inuu tuuray baad moodaysaa uu wadaa weli haddana hanti buu ku leeyahay Boorama. it's role model. tusaalayaasha noocaas
ama role modelka noocaasa tusaalaha nool ee sidaasoo kale dee laga faa'iideystay ahayd dalkan Somaliland la yiraahdo waa maxay sababaha haysta waxa ka koowaad haysata dalku ma lahaba horto wax soo saar ma lahaba dalku ma laha wax soo saarba wax soo saarku wuxuu noqon karaa haday noqoto beero oo dalkeena wax beeris hagaagsan ma leh oo beeraheena wax cunto haysan noogama soo baxdo ee waxaynu ka keensanaa waxaynu cunno quudda daruurigeena bariis haday noqoto paasto haday noqoto buskul quudda daruuriga dalkeenu qaata ku ugu muhiimsan waxaynu ka keensanaa dalka dibadiisa dalkeenu wax soo saar fiican oo dhinaca beeraha ma laha ma laha dalkeenu macdantii dalka ku jirtay lameena soo bixin macdanta dalka ku jirtay lameena soo bixin oo waqti miinaan gelin aynu uga faa'iideysano dalkeena shidaalka ku jira lameena soo bixin kalluunka badaheena ku jira waxa ku dhajanibtu si fudud isaga qaataan lameena soo bixin biyo xidheena dalka looma sameyn biyo xidheena ku filan oo dadku biyo ku filan badalka ma helaan idan looma sameyn dalka xoolaheeni miiga oo ugu muhiimsaneed lafdhabarta dalkeena ku tirsanaa xoolahay sidii loogu talagalay umaynaan dhaqan oo qaab casri ah oo nidaamkii hore berigii hore reer miyigu ku noolaan jiray wax ka bedelan oo umaynaan niman waa kuwa maalin kasta abaartu marinayso idan waa qaybo ka mid ah shaqo la'aanta dalka ka jirta dalkeena cilmi baadhis fiican laguma sameyn cilmi baadhistaasoo noqonaysa historical ahaan taariikh ahaan dalka looma cilmi baadhis looguma sameyn geographical ahaan looguma sameyn waxaa iyaguna sidoo kale munaasabadaasi hadallo ka jeediyey qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka iyagoo sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin barnaamijkan isla markaasna ay daladasayna ku bogaadinayaan wacyigelinta iyo isku xidhka ay u muujinayaan dhalinyarta Somaliland intaasi kadibna waxaa isaguna madashaasi hadallo ka jeediyey gudoomiyihii hore dalada sayna waxaana hadalladiisi ka mid ahaa dhalinyarta Somaliland xudun loo sameeyo isku xidhka oo ka shaqeysa horumarkooda danta guud iyo danta caamka mar walbana dhalinyar ahaan waa inaynu ka midho dhalina hadafkeena inaynu magaranaysaa halkii dalku maanta taagnay yahay aynu meel ka sareysa gaarsiino oo la sameeyo hadaf horumarineed oo aynu dhalinyarahaan isku xidhnaano oo aynu gabagabadii munaasabadana waxaa hadalka soo afmeeray gudoomiyaha dalada isku xidhka iyo wacyigelinta sayna anoo ku hadlaya dalada isku xidhka iyo wacyigelinta dhalinyarada Somaliland sayna Hargeysa inaan uga mahad celino dhalinyarada aadka u quruxda badan leh waji qalbiyada nadiifta kaga soo qayb galay barnaamijka kan waxa weeye wiilal iyo gabdho leh aad baa u mahadsantii ruuxantii barnaamijka hadii ka soo qayb gasheen moo inoo qurux bateen waxa weeye sida qiimaha badan la inuu dhacay ruuxantii inuu dhacay aad baa u mahadsantihiin kullu waxaan filayaa waa waqti dambe amin gaaban hadalkeed gaaban hadalka ma badinayo laakiin wixii shaqada ama barnaamijka halkeen ugu qoran walaalaha yiri idinkuna in badan baa tilmaamteen fursadii waxa weeye maarigida siiyay intaas waan qoranay intii kale walaaluhu noo jeediyeenna waana inoo duuban tahay waana inoo qoran tahay waqtigan mikrofoonka in dib leedii ku soo celiyo waan jecelahay inta idinkeed ka dhex ku xasanaa dib soo celisaan waxaan jecelahay in isagoo muuqaala iyo qoraara labadaba insha Allah bulshada dib ugu soo celino oo cidii waxa weeye dhalinyaro iyo cidii kale waxa weeye xukuumadda ay ugu horeysay ee gacan ka geysan karta balxalalka faraha badan la halkan laga tiriyay iyo inta kale idinka nagu jirtay inta naga maqanba in meel la isku geeyo oo kadib markaa waxa weeye ay gaadho ayaan ku rajooynaa insha Allah biidnillaahi kariim dubna way nagu soo laaban doontaa waxa kale oo ay xasuusin lahaa boorka gadaasheeda ka luusha la wadaagsayna ayaan ku furnay mashruuc barnaamijkan wuxuu noqon doonaa barnaamij taxana oo waxa weeye bishiiba hal mar bixi doona hadii la ka dhigo taasoo Maxamed Cabdi Cabdilaahi Maxamed Andar warbaahinta afka shacabka magaalada Hargeysa.